بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله ذن سورة هذا مركل الفيديو جين لبعض أو نكون برضو ما تعشر كين لبعض إن شاء الله تعالى. مركا واحد إنه كودي دونان هالكي إنه شوكت مالين كوره واحد إنه كتوش إنه مالين كوره إنه سمينه إن جافا بروجكت لكن سأينا ولو سمين إن أينا ولو سمين جافا كلاس مركا ما أنت أينو سمين دونا إن شاء الله. marka aynu sameynana waxaynu kolley ku dhex qori doonaa programkii ugu horeeyey oo waxa noo soo saari doona output displayga waxa nagu soo qori doona waxaynu sheegno halkaas ay nagu joogi doontaa maantana hadduu ilaahay ina gaarsiiyo aynu iska bilaabano. Shalay tole waxay noo joogtay projectkii inagoo sameynay inagoo tagnay new oo halkaas new ayaa laga sameynayaa projectka new markaad taabato waxaa kuu soo bixi doona interfaceka sidan oo kale ah. waxaynu tagnay java project inagoo taabanay markaa next magac ayaynu u bixinay java projectka kan aynu sameynay markaa waxaynu sheegnay halkaa in marka la sameeyo projectka aad u bixiso magac xambaarsan waxa uu qabanayo markaa hasito magac waxa uu qabanayo ku saabsan projectka kan aad sameynaysaa. Next finish then waxa ku soo bixi doona my first project 1 oo magacaan u bixiyay anigu markaa magaca aad bixisay wax si toos ah eeg baa ku soo bixi doona. ka dul tag right click markaad siiso new tag newga markaad tagto class ayaad tegi doontaa. class ayaynu tagnay waxaa inoo soo baxay isaguna interfaceka sidan oo kale ah markaa waxaad ku qori doontaa magac ayaad u bixin doontaa inagoo sheegnay markaa sidii kii hore kale waxaynu magac dari doonaa waxa uu qabanayo. println halka hoose markaa iman doontaa public static void main ayaad tigarayn doontaa iyadoo ay noo fududeynayso inta halkaa ku qoran ayaynu manually u qori lahayn laakiin markaynu tigarayno it will be there automatically. markaa finish ayaynu taaban doonaa finish markaad tiraahdo waa kaa intaynu sheegayna markii automatically iyadoo qoran baynu ugu nimi. markaa intan hoose iyadu waa comment hadhow markaan comment ka dhigan doonaa ayaynu ku arki doonaa insha allah. markaa aynu iska baabiino commentka aan baabiye hadduu imkii ku ooli lahaa waxba inamuu saameeyeen waxba inamuu yeeleen sidaynu doonayna aynu ugu shaqayn lahayd. markaa commentska ayaynu ugu tegi doonaa aynu iska bilaabano aynu qorno statementka ugu horeeyey si aynu wax usoo saarno. system out println waa qoys ayaad furi doontaa aad xiri doontaa semicolonna waynu ka dambeysiin doonaa. markaa qoyska dhexdiisa ayaynu kusoo noqon waxaynu ku dhex qori doonaa laba codes ayaynu ku dhex qori. markaa labada codes aan ku dhex qorno dhexdooda waxaynu ku dhex qori doonaa statementka doonayso outputka inuu ku soo baxo. markaa markaynu ku qorno statementka outputka aynu doonayno noo noqdo waxaad doonaysa inuu ku soo baxo ayaynu halkaa ku dhex qori doonaa. markaa aynu qorno assalaamu calaykum markaynu qorno intaas ayay noo soo bixi doontaa assalaamu calaykum. marka aynu rangareyno waxaa laga rangareynayaa halkaa yar sare calaamadda akhtarka ee triangle-ka ku dhex sooreeyay halkaa marka aad taabato okay ayaad odhan doontaa assalaamu calaykum intaynu halka sare ku qornay oo kaana soo baxay. marka waxaynu sameynay projectkeeni ugu horeeyey assalaamu calaykum ayaynu soo saaray. assalaamu calaykum markuu noo soo saaray waxaan doonayaa in halkaa wax yar ka xuso java waxa weeyaan waa case sensitive maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa java xarafka aad qorto xarafka keywordskeeda xarafka
xaraf walba siduu qoriyo waa inaad u qortaa. sta weyn iyo sta yarimka isku si uma arkayso. marka sta yarid markaynu qornay error baa soo baxay. error markuu soo baxo ma rangareyn kartid barnaamijkaagaasi halkaas ku fiid garoobaya. mar walba inaad hubsataa xarfuhu siduu qoran yihiin. xarafka weyn si weyn u qor, xarafka yarna sidiisa u qor, si yar u qor. marka laakiinse markay noqoto statementka dhexdiisa waxa aad doonaysa in aduu output ka dhigato, kaas adiga ikhtiyaar u leh, si allaaliyo sidaad doonto ka yeel, wax allaaliyo waxaad doontana ku qor. laakiinse markaad project aad diyaarinayso waxyaabaha aad u baahantahay maad ku dhex qori doontaa insha allahu tacaala. kaas isagu waa case sensitive maaha, laakiinse keywords amba waxyaabahan kale java isticmaalayso case sensitive. printka aynu imaadno, print ln haddaan halkaa ka dhigo, aan ka baabiyo, print keliya aan ka dhigo, aan rangareeyo, waxa ii soo baxayo same output. waa marka ay tahay waxa weeyaan single quotes, marka aynu waxaan jeedaa single statement. statement kale raacino inagoo print isticmaalna, waan rangareeyey, okay baan idhi, kaas assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum isku daba qabtay. marka halkaas markaad doonayso in aad assalaamu calaykum taa horena lane gooni aad ku qorto, assalaamu calaykum tan dambena aad lane gooni ku qorto weeyaan marka kaas aad u baahan tahay print ln. marka print ln ayaan odhan doonaa, marka aanu rangareyno si aanu aragno waxa dhacaya. okay, ka uu kala saaray assalaamu calaykum tii horena gooni buu qoray, tii dambena gooni. marka print ln iyo print differentka u dhexeeyaanba farqiga u dhexeeya waxa weeyaan print ln statementka aad ka horeysiiso print ln, sida assalaamu calaykum waxa ka horeeya print ln. marka waxay ka dhigan tahay assalaamu calaykum taa waxa lagu qorayaa lane gooniya, statementka ka dambeeyana laneka ku xiga ayaa lagu bilaabi doonaa, laysuma daba qaban doono. print ln kuna waa taa cagsigeedu, printkuna waa taa cagsigeedu. assalaamu calaykum taas aan halkaa ku qoray, statementka ka dambeeya waa lagu xigsiinayaa. marka farqiga u dhexeeya print ln-na gooni ayaa lagu qorayaa line, statementka aad qortay line baa gooni lagu qori. kan kalena printkana waa laisku daba qabanayaa statement walba oo aad qortay. markaa taasina iyadoo taas waxaan isku dayi doonaa bal iminkan inaynu soo dul marno. waxaynu maanta kasoo bilownay projectkeenu tagnay, class baynu sameynay. class markaynu sameynay new, haddana class, interfacekaas aynoo soo baxay, magac baynu u bixinay, magacaas oo sita waxa uu ku saabsan yahay classka kani. public static void mainka ayaynu tigaraynay, inagoo sheegnay inuu automatically inagu qorayo, inoo soo qorayo publicka. finish baynu nidhi, waxa inoo soo baxay print ln classka cusub oo sidaa u eg .java. markaynu inoo soo baxay aynu iska baabino kan inaga ku qornay, waka exactly saas oo kale inoo soo baxday. marka waxaynu ku qoraynaa imikana, waxaynu ku qornay system.out.println, inagoo sheegnay in markaad wax soo saarayso aad isticmaalayso system.out.println ood ku dhex qorayso marka halkaas. iyadana waxaan sheegnay inuu java case sensitive ay tahay, oo marka aad ka hubsanayso xarfaha sidaad qorayso, kii weynaana waad weyneyneysaa, kii yaraana waad yareyneysaa, laga reebo statementska oo aad ku dhex qoranayso wax allaaliyo waxa aad doonto. marka print ln iyo print farqiga u dhexeeya iyagana waanu sheegnay. waxaynu nidhi print ln marka la qorayo waxay ka dhigan tahay, imika print ln baan qoray, assalaamu calaykum oo xigsiisama. marka statementka assalaamu calaykum oo kale, mid walbo print ln ka horeyso, statement walbo print ln ka horeyso
line gooniya ayaa lagu qori doonaa. haddii ay print keliya ka horeysana waxaa lagu qori doonaa oo laisku daba xigsiin doonaa. marka maanta intaas inagu joogi doontaa insha allahu tacaala. wixii su-aalaa commentska aynoo furan, subscribe-tana iloomina. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.